waxaan rabaa dhowr kale walaalayaal inaan idin xasuusiyo idinka iyo anigaba oo aan wax idinka tilmaamo waxaa jira iminka runtii aad iyo aad inoogu soo badanaya oo waaqica ku soo badanaya waxaan cilaajyada loo yaqaano maraakista qur-aanka dadka yidhaahda oo ku akhriyayna waxa weeye ayaa aad iyo aad iyo aad iminka inoogu soo badanaya waxaan rabaa inaan dhowr mulaaxado oo ugu yaraan ilaa 11 ilaa 12 mulaaxado ama mukhaalafo oo waxa weeye haba kale waaweynaadaan ii muuqatay oo dadkaas iyo habraaca ay u raacayaan sidaa dadka ay u dowladayaan iga muuqatay idan insha allahu tacaala si kooban anigoon idinku dheerayn doonin aan idinla wadaago qodobka koobaad wuxuu yahay waa qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mihno shaqo laga dhigtay qur-aanku waxaynu ognahay waa kitaabka ilaahay qiimuu leeyahay sharafuu leeyahay waxay culimmadu xataa diideen ayagoo karaamada iyo waxa weeye qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala sharafta uu leeyahay ilaalinaya xataa macallinkii qur-aanka dhigayey ee ardayga u dhigayey ayaa culimmada badankooda waxay yidhaahdeen inuu lacag ka qaatahay ma bannaana markaasaa la isku haysta bal ka warrama waxaa la diiday in lacag laga qaato in qof qur-aan loo akhriyo iyo lacagta laga qaadanayo labadaba culimmadu way diideen raxmatullaahi calayh bal ka warrama waxa weeye haddii maraakis loo furto oo maalinkii 10,000 oo doolar laga xaraynayo intaa masaajidka fadhida iyo in ka badan ay hal meel soo wadagelayaan taas waa mulaaxadada koowaad qur-aankii oo laga dhigtay mihno shaqo oo caadi ah oo waxa weeye laga dhigtay mulaaxadada labaad ama qaladka labaad waxa weeye dadkan waxaan ka shaqaynayaa in dad gaar ah waxaan u tafaruqeenba oo shaqo aan shaqada ahayn mooyaan wax kale oo aanay qabaneenba oo aanay meel kaleba ugu baxay meel kaleba ugu bixi mayso 300 qof 400 qof 500 qof baa gelinka hore 11 ilaa waxa weeye 10 ilaa 6 soo gelaysa shifti baa loo kala qaybinaya bal idinku xisaabiya waa imisa waa intee le shaqo kale ma hayaba waa mulaaxada labaad waxa saddex oo runtii oo muhiim ah dadka inta badan mashruucan ka shaqaynaya laba qodob baa isu raacay waa dad aan aqoon lahayn ama hadday leeyihiin aqoontoodu yar tahay waxa kale u raacay khibrana ma jirto mawduucan iyo mashruucan khibra ay ka haystaana ma jirto in badan oo ka mid ah dadka mashruucan ka shaqaynaya waxa la og yahay xataa inaanay khalfiyo waxa weeye aqooneed oo diineed ba lahayn dad badan oo ka mid qaar badan oo ka mid xitaa wax kale iska dhaafay carabida ma akhri karayaan qaar badan oo ka mid xitaa quraanka ma akhri karayaan ama hadday akhriyaan si waxa weeye aad iyo aad u barakaysan ayuu akhrinaya dhiiranaanta inta leeg ee qofkii asagoo xitaa laga yaabo carabidii aanu akhri karin inuu ummadii waxa weeye leef soo galo oo ummadda inta leeg u soo bandhigo maskaxdiisa u soo bandhigo waa arrin aad iyo aad halis oo khatiir qodobka afraad ee asagoo runtii mukhaalafada sharciga ah ee muhiimka waxa weeye dadkan arrin mashruucan ka shaqaynaya ayaga iyo cidda la shaqaynaysaaba in ajaanibtii la isdhexgalay oo waxa weeye ama madaxa lagu dhego ama gacanta lagu dhego ama meel kale lagu dhegay ilan taabashada xaraam bay ama gabadhu inay taabato nin kale inay taabato ama ninku inuu nin kale waxa weeye gabadhu waxa weeye ninku inuu gabadh kale taabto oo ajnabi ka ah xaraam bay mana banaana wax daruuro oo imika banaynaysaana ma jirto bal idinku gabadh leeyahay quraan baa lagu akhriyaa cunaha la hayo ma aragtay cunaha la hayo gebigeedina cunaha lagu dhigay ka lagu dhigay cunaha lagu dhigay ama meel ka xun baa la iska laalaadanay ama labada gacmood laga buxsanay halkaana 10 dumar tahay hawe waxaas waxa waa dhaqan xumo weyn maaha waxa weeye quraan akhrin maaha wadaadnimo maaha quraan ku tufis maaha waxa weeye walidaalka culimadu waxay dhahdeen farqi baa u dhaxeeya dhakhtarka
dhakhaatiirta caadiga ah ee jismiga ka shaqeysa dawada ku shaqeysa ayaga waa loo baneeyay inay qofka waxa weeye cawradiisa arki karaan inay taaban karaan laakiin wax culimadu leeyihiin dadka quraanka dadka ku akhrinaya ayagu ma banaano maxaa yeelay ninkan dhakhtarka ah markuu qofka dumar qalayo si kale ku suurtagelmaysa ilaa ay waxa weeye u taabto laakiin kan asagoo halka taagan uu akhri karayaan waxa culimadu ku dhigaysa halka ayada taagan ku akhri kara saabay hada culimadu ku dhigantay iyo madaxa toolaha qaban ama iska laalaadin waxa weeye waa arrintii asagoo madaxdiisa oo halis weey qodobka shanaad ama mukhalafada shanaad waxa weeye waxay isticmaalayaan aalaad runtii dadka argagax gelinaya waxa kamid ah qofkii biyo lagu fulay gabigiisa biyo lagu fulay tabal adiga caadiga biyo lagu fulay in hafa weeyo dadka inuu junkugu jiro la moodo waayo ma qof inaga mid ah oo inta tuumba la soo qaato hadii lagu shubo oo lagu soo dul istaago ama baad inta la soo qaato madaxa laga dhaco miyad hafanay miyad qaylinay miyad gariiray salgoon jumba ku jira si walagu sixra waxa ka daran samaacad inta la soo qaado ayaa madaxa dadka agtida la dhigay markaas bahasha qayladeeda wallahi waa ka argixisa waa arin aad halkii ay hayd qofkanu maadaama uu bukaan yahay in la dhawro in dhibaatada laga ilaaliyo in saqada laga ilaaliyo ayay yahay laakiin aalaad mufzi'a ay dadka soo adeegsanay waxa qodobka lixaad ah sagana suntiisa kooban u dulmarayay in ay waliba dumarkii cawradii u fooydeys oo dadkii iyo bulshadii loo soo bandhigayo haweenkeennii iyo caarkeennii qaaqaawan waxa la sheegay meelaha qaar in waxa weeye raggu fayl galiya fayl tana waa eegay maxaad keegaysaa ninka aniga eeyada ku jirta aniga hooyada ku jirta aniga walaashiga ku jirta inta la galaa taa dumarkii loo daawanaya la daawanaya waxaas markaa runtii waa wax runtii aad iyo aad mufsixo waxa qodobka lixaad oo toddobaad mukhaalafa runtii asaguna ah dadku hadii laga soo qaado inay xanuunsanayaan isku nooc ma isku xanuun ma isku sil lama wada hayo bal beeshinka dhakhtarka iyo weyn yaala hadii kii lugta ka jabnaa iyo kii tiin beena qabay iyo kii calooshu ka soo dhacaysay iyo kii naqasku hayay leeyahay hal san la wada tiifiye ka waran de wax yeeli karna ma Soomaa qol yaro inta leey oo misaajka afar marka loo qaybiyo ama todoba loo qaybiyo leey ayaa 200 qof la isku keenay marka dusha la iska koriyo markaas xitaa kii aan xanuunsan oo meesha ku xanuunsanay waa halis arrinkaas waa halis marka la eego runtii caafimaadka iyo habraaciisa marka la eego arrinkaas runtii waa arrin halis weey qofka hadii isagoo caadi qaba dad waala hadii lagu dhaxiro wad waala saaw zay kugu ciyaarayaan marka waxay dhinac kugu jiidayaan qodobka sideedaad mukhalafaadka runtii waa waqtiga lagu yaraa qandul mareynaa aan ku arkay waxa weey waxaan ay akhrinayaan ama ay adeegsanayaan badankoodu si badan yihiin adkaartii sharciga ah soo aroortay ma hawa waan baaray waan dhageystay waxaan silbal waxaan isku dayay bal waxaan akhrinayaan qaar badan oo inaad fahmo waxaan ka fahmay mar dhowr intaas oo cajalood baan daawaday kii ugu fiicnaa waxaan ka fahmay as-sihr baan ka fahmay wax kale akhrimaysa wax kale oo saa loo dumduminayo oo waxna waxa taro xaga muuj wax alla wixii la garanay laakiin wuxuu haduu wax caadi yahay de umada la maqalsin laha wax la akhrinay Soomaa ayo as-sihr taqoodida la isku haysto in sihr dadka lagu celceliyay iyadoo ku dhado ma aayad baa dadka soo qoran ma sheeg wala ilaahay dawo laga dabo ma doona sihr taaf ku haya ku celceliyo qodobka sagaalaad ee asna muhiimka ah oo mukhalafada sagaalaad muhiimka waxa weeye runtii aan ku arkay bulshadii madaxa la isu gelinaya waxa laga dhaxabuurayaa isqabsi waxa laga dhaxabuurayaa nacayb dhexdooda laga abuurayo saale waxa lagu oranaya sixir baa laga helay guriga laga helay ayaa galiyay heblaaya galisay sixir baa guriga laga xaga laga keenay
hodan qeylaa laga keenay xagaa laga keenay tuurtaa laga keenay maxaa dhacaya markaa de in la isku duulo soo ma harsan marka la yidhaahdo xaafadaadii waxa way guriga kugu xiga sixirka kugu rida meesha tan waa halis wey waa arrinkaas waa arrin khatar weeye wuxuu keeni karaa waxa weeye bulshadu inay isku dhacdo in la isnaco ayuu keeni karaa ta labaad in la rumaysto waxaan dadkan ka qaylinaya in la rumaystaay waxa weeye kalsooni intee lag baa lagu qabi karaa kalsooni intee lag baa lagu qabi karaa in waxa weeye waxaan meesha ka hadlayo inuu ku sheegayo waxa weeye aan la isku hadlayn karin ta kale waxaan ay meesha ka soo saarayaan markaad eegto waxay u eeg tahay badankood wax la sameeyay aniga xaqada ilaahay baa qaar dhabana waa laga yaabaa laakiin in badan oo ka mid ah waxaan ay sameynayaan waa wax ayagu ay sameeyeen saale guri baa la oranayaa sixir baa ku jira xaguu ku jira shandada qolka taalo waxa weeye hurdada haye afar xabo sharaab laga soo saaray gurigaaga dhanada ku nooshay waa sharaab ka yaala aad ogeyn bal waxa ilaahay baa ku dhaashay dadka laga dhaadhicinaya bal aqliyada noocaas ee dadka dawool looga dhigayo ee la rumaysanaya sacabka loo tumay ka waran leesixir baa guriga laga soo saaray reehel a'uudu billahi minash shaytaani baas ama sirta hoosteeda guriga laga soo saaray anigu way way qacday dhagaxana ku qacday waaradan hadda dhagax ku qacday way dhiman lahayd waxa cajiib ah waxaan arkay ninka wuxuu yiri waxaan leeyahay saxiix maxaa ku salaysan kaliya ka saaray haye beerkan ka saaray haye dhinaca midig baan baqtiyay haye dabal gaba qof kalidii ka maqan tahay oo beerkii ka maqan yahay oo dhinaca dhan baqtiyay muu shaqayn lahaa way soconaysaa way hadlaysaa way shaqaysanaysaa bal labada kaliya ka maqan ka war saan guriga hadana waa saxiix u soo celi kaliyaheeda oo waxa sababta waxa weeye waxaan waa wax runtii wax laga yaqiinsado weey oo wax laga yaqiinsado waxa mar raba inaan dheereeyo waxa ka mid ah runtii ayaduna oo qodobkaas uu ka agdhow laba qodob ay hadheen oo 12 dadka qulubtooda in lagu abuuro argagax lagu abuuro baqdin lagu abuuro marka lagu yiraahdo alla guriga kan ku xiga laga soo saaray wallahi anigana bal meesha ay geeyay anigu qudada waxba iga sii marka waa meesha kaarka goosto Soomaaliya marka waa nooc marka taswiiqa waa suuq geeway xaafadii baa loo qaybinayaa mar waxa la tagayaa October mar waxa la tagayaa hada qayl mar waxa la tagayaa tuurta mar waxa la tagayaa siyaada haye marka waa in xaafadana timaado taana timaado si maarta waxa weeye meesha suuq fiican oo hesho waxa cajiib ah runtii oo qodobka ka dambeeyay qaar badan oo wax ka shaqeeya waxa ku jirta isla weyni kaliya bay ka qaadeenba kaliya isla weyni ilaa way qaar kamid ay ku leeyihiin carabka dadka ay u dhaareen carabka ee shaqada ay qaban kareen carab oo wax la akhriis waan quraan ahayn waxa cadeynaya mulaaxadada weyn calaamad su'aal gelinaya shaqada dadkaas ay waxa kamid uu ku dhaaraya wuxuu leeyahay ariya qaban kareen oo haduu waxan wax caadi ah quraanka ilaahay yahay maxaa dadka ugu carinaysa suuqle dhowr dollar baan dhigayaa carabka ee shaqada qabanay wax la akhriis quraan maaha marka wax kala jirade wax kale adiga marka meesha kasta ku raacaya jiro dadkan kale ay aan la socon Soomaa waxa cajiib ah oo ugu dambeyn oo 12 mulaaxado 12 ah oo la yaab oo waxba ka daran waayaw qofkan hadii laga soo qaado inuu xanuunsanayo xuquuq buu leeyahay Soomaa xuquuqdiisa waxa kamid ah in la ilaaliyo sumcadiisa la ilaaliyo cawradiisa loo ilaaliyo sharaftiisa loo ilaaliyo kamarad baa la isticmaalaa xageen ku arko qof beeshiyo la qalaayo ama lug loo kabaayo waxa weeye fiido laga duubayo meel aragna waxaas marka war hadii aad qof dadka u shaqeynayso dadkan xanuunsanaya ee haddaan kama soo qaadanaya masaakiin ee ooyay ee ilmadu ka daadanayso anigu inay iska weydiinayaan iyo ilaahay baa ogeey maxaad ugu duubaysaa illa wa turuqa xaaja keentay Soomaa dadka in guriyahooda gasho maxaad guriyahooda dhixisay iyo sariirtooda guriyahooda u duubaysaa ee kamarda uu soo galay reeraha xaafadooda waa dhaqan xumo ugu dambeyn qodobkooda waxa weeye cajiibka quraan
burcano waxa la sixir ba ku jira taro inaga maxaa la soo doontaa horta reer burcano waxa la soo doontaa maalin mid baa imanaya cusub maalin mid cusub hebel waa cajiib tabatana wuxuu ku leeyahay mid qaar wuxuu ku leeyahay waa hebel dadku buufinaya ku leeyahay waa dadku waxa weeye ma taayir ba dadku waxa laga buufinaya kuma taayir waa dadku ma lama buufin dadka tabatana waa taa biyo dawla loo qabto dadka fadhiku ku qofo biyo lagu shaqeeyo mukhaalafaadka muhiimka ah kamid biyahan حقال حي بيها بركين تلاقي وطن يا بركين بيها يا بركين وقول قف صدق شنطة بقول قف مساعد كافر يبغى يبص هذه الودو بويد بيها طلعت الله قوانين مسمسم بعد سمسم أقول هديهين مبويد سمسم مغلية حوكي اللي بوسسه حق اللي جاي بوسسه ما ينقل السعودي قلت ما معلك السعودي قال لا صدر يعني arrinkaas reer burcano waxa weeye in la ilo soo shaqo tago maalinba waxa weeye la isugu soo wareegay waa arrin mulaxadada weeye ugu dambeyn waxa ka baxay walaal anigu cilaaj ma haysto kama shaqeeyo qaar baa oran darawadaadku madaawa shaqadiisa lagu soo wareegay anigu cilaaj kama shaqeeyo wala aqaan laakiin waxa ay dhibtay runtii dhibaatada bulshadeena lagu hayo ay dadka masaakiinta war miya aragtay dad way xanuunsan xabad lagu kala leeyahay xabad lagu kala leeyahay inta badi ka qabaan ayay dadka isjeedeen markaas la isbaqtiyay markaas dadka xabad lagu kala leeyahay ilaahay baa ku dhashay waxa ka waran waxa weeye marka walaalahay baaq bay dareynaa waxaan baaq u dareynaa dawladda oo madaxweyne ugu horeeyo wasiirka caafimaadka ku xigo arrimaha gudaha ku xigaan ummadan diintooda caafimaadkooda ayaga ka mas'uul amnigooda ayaga ka mas'uul wixii ummadda waxyeelaya ee dhibaataynaya waa inay ka qabtaan waxaan wax caadi ma haddii aan la qabanin oo aan maanta aynan iska gaarin wallaahi meel ka xun bay aynu ka doonin meel ka xun bay hadhowna inta garoomada waaweyn leynoo furo ayuu reer burcano oo rusheynay arki doontaan haddaad joojin weyda in wax iska joojin baaqa labaad waxaan u dirayaa dadka waxgaradka takhaatiirta culimmada waxana waa in laga hadlo war maxaa loo aaminsan yahay حلو أمسك طلبات وحي ممكن نقول جناح سيو وهو الله كره ديرنا وده دقل سود ويسنس وده دقل سود ويسنس قاربة حوالي طلبات وحي ممكن لقوا أيام ما لهم مدة صباح يمكن يكون وينه والله وحلايا عجيبة فالمركز ده وقوع خلينا هذا قرآن أخرين ما يسمع أخرين ما وريا أصابات الله وريا واحد وحنا هذا وح الله صعب مواريا بقى وح كترسه ولكن تعلمت كعراعيان كاميرا اللي سوتوا واسكوا النوع واسكوا النوع تبغى انت على اسم واريا صوص اوكي سب كمي هذا arrinkaas reer burcano waxa weeye in la ilo soo shaqo tago maalinba waxa weeye la isugu soo wareegay waa arrin mulaxadada weeye ugu dambeyn waxa ka baxay walaal anigu cilaaj ma haysto kama shaqeeyo qaar baa oran darawadaadku madaawa shaqadiisa lagu soo wareegay anigu cilaaj kama shaqeeyo wala aqaan laakiin waxa ay dhibtay runtii dhibaatada bulshadeena lagu hayo ay dadka masaakiinta war miya aragtay dad way xanuunsan xabad lagu kala leeyahay xabad lagu kala leeyahay inta badi ka qabaan ayay dadka isjeedeen markaas la isbaqtiyay markaas dadka xabad lagu kala leeyahay ilaahay baa ku dhashay waxa ka waran waxa weeye marka walaalahay baaq bay dareynaa waxaan baaq u dareynaa dawladda oo madaxweyne ugu horeeyo wasiirka caafimaadka ku xigo arrimaha gudaha ku xigaan ummadan diintooda caafimaadkooda ayaga ka mas'uul amnigooda ayaga ka mas'uul wixii ummadda waxyeelaya ee dhibaataynaya waa inay ka qabtaan waxaan wax caadi ma haddii aan la qabanin oo aan maanta aynan iska gaarin wallaahi meel ka xun bay aynu ka doonin meel ka xun bay hadhowna inta garoomada waaweyn leynoo furo ayuu reer burcano oo rusheynay arki doontaan haddaad joojin weyda in wax iska joojin baaqa labaad waxaan u dirayaa dadka waxgaradka takhaatiirta culimmada waxana waa in laga hadlo war maxaa loo aaminsan yahay طلبات وحي ممكن نقول جناح سيو وهو الله كره ديرنا وده دقل سود ويسنس قاربة حوالي طلبات وحي ممكن لقوا أيام ما لهم مدة صباح يمكن يكون وينه والله وحلايا عجيبة فالمركز ده وقوع خلينا هذا قرآن أخرين ما يسمع أخرين ما
وريا أصلا هاي وريا واحد وريا واحد وحنا هذا واحد خلص ما وريا أبغى واحد كترسل فلذلك قال تعلمت كعراعيان كاميرا اللي ستوا اسمه النوع واسمه النوع ده طلعت على اسمه وريا صوصو اوكي سب كوي هذا فجزاكم الله خير حوالي dadka waa in waxa laga kaco oo la iska qabto oo talabaad waxa weeye waa tawaaquf maalin mid baa inoo imanayo inagu dhibaatadiina hore inaga fara badatay oo duruufihiina la taag daran ayaa maalin mid inoo imanaya bari saada mid baa heer keenaya saakuuda heer keenaya ilaa wixii ganacsi noqdo waa ganacsi marka dadka wax garabka uqaasha salaadiinta dhaqaatiirta culimadu waa in dowrkeeda la guto oo ilaahay laga baqo oo dhalinyaradu waxa weeye ay ka kacaan oo waxaan aynu iska qabanno haddii kale de waxna wax kale noqonaysa waa imtixaan iyo fitna inagu abuuraysa waxa weeye ceebna magaaladii bay ku tahay magaalada waa rashin way sixranta oo maalin meel sixir laga soo saaray walaal la sixirneen balaayar ma qabno burcana waa magaalo wanaagsan oo aqooneed oo madaxeed oo dacweed oo diineed magaalada Soomaaliya dhulka Soomaaliya la yiraahdo ama deegaanada Soomaaliya dhulka ugu fiican ugu dacwada fiican bay ee ugu wanaag badan ee waxa way ugu dadka hal doorka ku nool yihiin haddana waa ka maalin xawil lagu wareegay kolba meel xafis laga soo saaray ala sallallahu wa sallam ala nabiyyina amin alladhi amarakum Allah bi salati wa salam alayhi haythu qala